nastaxino walaasha qaaliga ya shoodhadaydii yareed ayaa idinkaga dhigtay meel kasta. My personal opinion, hotel number one waxaan rabaa inaan idiin sheego, dumar weligood way hinaasi jireen, dumarna weligood way maseeri jireen, laakiin maseerkii berigii hore ama hinaasigii berigii hore waxay ahaan jirtay naag marka la furo maaragtay, waxay ahaan jirtay naagta oo kale cusub ee la guursado eriya jirtay, banaankaas guri jirtay oo haddii doonto biyo kulbi ku shubi jirtay, haddii doonto hablaha dumarka xaafadda la fadhiya kaabadaha maaragtay ayay odhan jirtay naagtaas waa saayaysa. maanta laakiin wax kasta waxa fududeeyay waxaan niicda ee leeyahay social media ee dad isku haleynayaan waliba. marka wada saaxiibkii qaaliga Xuseen mustaxilinkeeda saaxiib wax ka halaabada ma jirto, gabadhii hore liq horta ninkii haddii ay kala tagteen oo calafkiina dhammaaday waa laga fiicaya in video inta la qaado la sii faafiyo loona hanjabo. waa reality-ga xaqna u leeyahay nasteexo asxaabta Snapchat-ka inay runta ogaadaan. marka Soomaalida inta kale ay soo hadhay saakii shalay markaan ini warramay aan lahaa asxaabta Snapchat videogaas aniga meel kasta loo qaleega soo gelinay ama lagu tag gareynay ama meel kasta lagu soo diray. kii ii soo diraba blog baan saaray, ama Instagram-ka igu soo dira, ama WhatsApp-ka igu soo dira, ama igu soo dira isha Facebook-ga kitaabka Jama blog sideedii. waa qofkaas berina anigu wax iga qaaday ama qof kale uu ka qaaday waxa ka sii daran mataqaana saddex fanaan oo magac leh oo ii soo diray iyagana blog. Hypocrite-ka Quraankiisa muxuu ku sheegay Abu Wajila ama qofka hypocrite ilaahay Quraankiisa muxuu ku sheegay suuradda Nisaa aayadda 4 ayaa uu ku sheegay Quraanka ilaahay in dadka noocaasa ay naarta dadku ugu hooseeyay ay yihiin. subhanallah, ilaahu naarta naga fogay dhammaanteedba. dadka hypocrite-ka asxaabtay toos aanan u jawaabin, qoraan oo qoran waxna aanan u qorin, oo magac leh oo $20 ugu soo gashay oo kula sawiro eeg. come on social media la isku hadlayna waa magac bay nasteexayn lahayd. social media jirin, social media-na maanta haddaan jirin yaa kaaga futuxo adiga. marka quraanka way ilaahay ku sheegay dadka noocaasa in naarta dadku ugu hooseeyay diintada noqonayo. waxa soo hadhay cid kasta oo Snapchat-ka daawanaysa, cid kasta oo xumaan faafinaysa, cid kasta oo video beddelinaysa, cid kasta oo say doonaan u turjumaanaya. ogaada quraankeeni suuradda Al-Nisaa aayadda 4 ayaa toos no help up cid quriyo wax ku qaban karta ma jirto. naarta qofku ugu hooseeyaad hadaa rabtid inaad saata optimal kasta videos, laakiin waa dijiso wax ka sugtaa hadaa wax soo dirtaa waa block. qof negative iyo qof hypocrite-ka oo xumaan wada ama xumaan faafidinaya abdi dijiso wax ka sugtaan toos block. iyadoo saas ayaan waliba aan xumaan inta isku day inaan ka fogaado ayaanan magacyadooda soo bandhigan, laakiin haddaan soo bandhigi lahaa waa la isku maran lahaa. iga sugin inaan ugu stage la istaago ma ogin low class ayuu oran lahaa joko ilaa naxariista kaliya laab.